Soomaaliya waa dal alla ku manaystay xeebta ugu dheer guud ahaan qaaradda Afrika. Soomaaliya xilliga ay Soomaaliya ahayd waxay lahayd mid ka mid ah ciidamada ugu wanaagsan ee badaha ilaaliya caalamka. Wayna adkeyd inta ka mid ah badeena wasakh lagu shubo. Iska daa ciidankeena waqtigaasi waxay wasakhda in lagu shubo ka ilaalin jireen biyaha caalamiga ee badeena ku xeeran. Wax walba waxay isbedeleen kadib burburkii 1991 ka dhacay dalkeena. Waxay intaa ka dambeeyay biyaheenu waxay hooy u noqdeen wasakhda iyo haraaga sunta ah oo ay shirkadaha iyo dalalka caalamka iska soo fogeeyaan. soddonkii Maarch 1992 wasiirkii caafimaadka Soomaaliya iyo maamulihii bangiga dhexe ee Soomaaliya waxay heshiis kula galeen magaalada Roma shirkad ay lahaayeen rag maafiyada Talyaaniga ka tirsan. Shirkadan ayaa lagu magacaabi jiray Interservice SRL. heshiiskan ayaana ahaa 2 milyan oo tan oo haamo sun ah lagu shubo badda Soomaaliya. waxayna shirkadaasi lacag ahaan u siisay shakhsiyaadkani aan gadaal magacyadoodii kaga sheegi doono lacag dhan 8 milyan oo dollarka Mareykanka. heshiiskan wuxuu qorayaa ilaa sanadkii in lagu talay 500 oo kun oo tan oo sano in lagu shubo lacagta lagu bixinayo 8 milyan baa ay rubuxna sidoo qoray Soomaaliya marka iyada la heshiiyay markaas waxa la heshiiyay halkan qoraya shirkad niman Talyaani oo mafia weey shirkad bay u sameeyeen 1991 kii heshiiskan iyo xubno kamid ahaa dawladda xilliga jirtay oo gaarka ahayd oo waliba magacyadooda xusan laakiin anagu muhiimadu shakhsiyaadkan inagu warbixin baan meesha soo bandhigayna marka yaa ku xusan marka xilliga waxaan warbixintu inagu warbixintan ay qoreen waxa ku xusan laba magac baa ku xusan Soomaaliya wasiir matalaya caafimaadka dowladda Soomaaliya xilliga baa 30 March 1992 Roma ugu tagay nimanka Soomaaliya waxa kale oo ku xusan xubin ka tirsan Central Bank of Soomaaliya marka iyaguna magacyadoodana waa ku yaalaan meesha laakiin wad ka maagaysan magacyada sheegto haddii ay ka maageen aqoon-yahanadan Soomaaliyeed inay idin sheegaan magacyada shakhsiyaadkaasi aniga idin sheegaya magacyadooda oo aan wax wajiga ka sugeen shakhsiyaad dalkaga qiyaano inta la ku sameeyay. warbixintan oo hadda gacanta ku hayo waxaa soo saaray hay'ad arrimaha deegaanka u dooda oo lagu magacaabo Greenpeace. waxaa sidoo kale warbixintani lagu xusay kulamo badan oo ka dhacay magaalada Nairobi oo looga hadlayay sunta lagu shubo badda Soomaaliya. haddaba heshiiskan oo dhacay 30kii March 1992 kana dhacay hotel ku yaala magaalada Roma waxa magaca Soomaaliya ku saxiixay lacagna ku bedeshay wasiirkii caafimaadka ee dawladda ku meel gaarka ahayd oo hogaaminayay Cali Mahdi. wasiirkan ayaa lagu magacaabi jiray Master Nuur Cilmi. waxaa sidoo kale uu helinayay governorkii bangiga dhexe ee Soomaaliya Master Cali Cabdi Amalo. waxaa dhanka shirkadda maafiyada Talyaaniga ay u saxiixay heshiiskani Roberto Ruben iyo Ferdinando Dallo. laba sano ka hor 2016 wasaaradii deegaanka ee Soomaaliya ee waqtigaasi waxay u ogolaatay shirkad UK laga leeyahay inay badda Soomaaliya ku shubto 1.5 milyan tan oo wasakh ah. sidoo kale dalka Lubnaan oo la dhibtoonaya qashinka baddiisa ku jira ayaa isla wasaaraddaasi waxay heshiis kula gashay in qashinkooda ay baddeena ku soo shubaan. warqadan waxa ku xusan wasaaradda environment ama deegaanka Soomaaliya marka goorma soo baxday warqadan waxay soo baxday 14 January this year sanadkan 2016 reference number bay leedahay sumad bay leedahay warqadan waxay sheegaysaa company ku yaala UK oo adresskiisa halkan ku xusan yahay in wasaaradda deegaanku ay u ogolaatay inuu dalka keeno 1.5 milyan tan hal dhibic 5 milyan oo qashina qashinkaas waxa weeye plastiga waxyaalahan houseka metalka paperka waxyaalahaas ee wadooyinka la dhigo ama dal lagu qubo sidoo ogsoonahay dal la yiraahdo Lebanon qashinku struggle kula jira ama dhibaato ka haysata inuu dalka laga qaado wadanka Lebanon dalka Lebanon qashinka company-gan halkan ku xusan ee Soomaalidu dawladda wasaaraddu ay siisay contractiga ayaa dawladda Lebanon ka soo qaatay contractiga sababa
وحاول قيمه 670 مليون ayay kooskaraysaa dawladdu sanadkii maaha tanki waxa weeyaan 3,500 bartan waa in every day laga qaado dalka laga qaado xog la helay ayaa sheegaysa in ka badan 10 milyan oo tan oo wasakh ah lagu shubay badda Soomaaliya sanadihii u dambeeyay haddaba waa maxay noocyada wasakhda ee lagu shubay baddeena iyo dhibaatooyinka caafimaad ee inooga iman kara mustaqbalka wasakhda lagu shubay baddeena ayaa ah kuwa noocyo badan qatar ahaanna kala daran sunta ugu halisan ee baddeena lagu shubay waa haraaga hubka nuclear-ka sidoo kale wasakhda iska soo fogeeyeen warshadaha caalamka kama marna wasakhda ay dalalka badahooda ka soo saareen kuna shubeen badaheena sida dalka Lubnaan warbixin soo baxday 2 sano ka hor ayaa lagu sheegay in Soomaaliya 4 sano kadib aan laga iibsan karin wax kalluun ama malaay ah taasna waxay muujinaysaa halista ballaaran oo ku soo wajahan mustaqbalka dhow noolaha ku nool baddeena dhanka kale waxay deegaankeena ku yeelatay saameyn ballaaran waxa dalka lagu arkay cudurro halis ah oo hore loogu arag kuwaas oo intooda badan ku dhaca maqaarka tusaale wiilkan yar warbixintani qayb ayuu ka ahaa waxayna sheegeen inuu kamid yahay cudurrada sababay wasakhda sunta ee lagu shubay baddeena waxaana wasakhdaasi banaanka keenay oo ka soo saaray containerkii ay ku jireen dhul gariir weyn oo ka dhacay badda Indian Ocean-ka sanadkii 2004 sidoo kale mararka qaarkood badda ayaa soo caarisa container waaweyn oo ay wasakh suna ku jiraan muuqaalkani waa muuqaal aan helay oo muujinaya fuusto badda soo caarisay oo mid kamid ah xeebaha Soomaaliya lagu arkay waxaan sidoo kale idinla wadaagayaa muuqaal kale oo kooxo baaritaano wada ka soo duubeen gobolka Bari gaar ahaan caasimadiisa Boosaaso sida aragtaan waa kalluunkii oo mowjadaha biyaha ku soo tuureen banaanka iyagoo sumaysan warbixin uu baahiyay TV-ga CBC ee laga leeyahay dalka Canada ayaa sanadkii 2009 barnaamij ka diyaariyay sunta lagu shubay badda Soomaaliya. In this case, it's not Somalis who are the pirates, they are the victims. With no government to enforce its sovereignty, kiiska xaaladda jirta maaha kaliya burcadbadeednimo ee waxaa sidoo kale jira dhibanayaal iyadoo aysan jirin ciidamo dawladeed oo badda ilaaliya maraakiib shisheeye ayaa xeebaha Soomaaliya ku shubasun sidoo kale waxaa ka jira kalluumaysatooyin sharci darro ah Axmed Xuseen oo waqtigaasi ahaa madaxii ugu sareeyay ee Canadian Somali Congress ahna hadda wasiirka immigration-ka ee dalka Canada ayaa waqtigaasi TV-gan siiyay waraysi ku aadan sunta lagu shubay xeebaha Soomaaliya wuxuuna yiri When you see the coverage of piracy in most international media, you don't hear much about the $300 million annually that's lost by Somali fishermen. markaad aragtid warbaahinta caalamka iyagoo tabinaya arrimaha burcadbadeedka kama maqlaysid wax badan oo ku saabsan 300 milyan oo ay sanad kasta kalluumaysatada Soomaalida uga qasaarto kalluumaysiga sharci darrada ah sidoo kale kama maqlaysid sunta badan ee xeebaha Soomaaliya lagu shubo warbixintani oo dheer waxaa sidoo kale lagu xusay in suntaasi ay ka dhasheen cudurro aan hore Soomaaliya looga arag iyo sidoo kale inay saameyn ku yeelatay cimilada dalka ugu dambeyntii dawladda Soomaaliya waxaan fariin ugu dirayaa inay maxkamadda soo istaajiso cid walba oo ku lug yeelata kiiskan sidoo kale waxaa waajib ah in baaritaan lagu sameeyo shakhsigii mas'uulka ka ahaa 2016 wasaaradda deegaanka waxana laga weydiiyo sababta ay ugu ogolaadeen shirkadda UK laga leeyahay inay qashinka ku shubta baddeena warbixintan kooban oo aan idin soo diyaariyay anigoo Cabdirasaaq Gumaysidiida waxaan la wadaagi doonaa dhammaan hay'adaha ay qusayso adna waxaan ka codsanayaa daawade inaad muuqaalkani sii qaybiso si ay u gaarto dhammaan bulshada Soomaaliyeed waa saaxiibkiina Cabdirasaaq Gumaysidiida oo dilay dalkeena adoo ka xorooba nabadgelyo